wasiirka howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa dalka Jordan uga qayb galaya kalfadhiga afraad ee madasha wasiirada Carabta ee gurigeynta iyo horumarinta magaalooyinka oo ka furmaya caasimadda Jordan ee Amman. kalfadhigan oo soconi doona muddo 3 maalmood ah ayaa waxaa looga doodi doona arrimo badan oo ay ka mid yihiin xoojinta iskaashiga wadajirka ah ee Carabta ee dhinaca guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka iyo xoojinta iskaashiga hay'adaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah oo ay ku jirto barnaamijka dejinta aadanaha ee qaramada midoobay. wasiirka howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xuseen Maxamed Sheekh Xuseen oo khudbad dhinacyo badan taabaneysay ka jeediyay shirka ayaa waxa uu faahfaahiyay shaqooyinka ugu dambeeyay ee ay wasaaradda ka qabatay dib u dhiska dalka wuxuuna carabka ku dhuftay in muddooyinkii dambe uu dib u dhiska dalka sameynayo kobac fiican isagoo tilmaamay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay si isdaba joog u wadaan dib u dhiska dalka wuxuuna xusay inay ka dawlad ahaan dadaal ugu jiraan sidii dhismayaal casri ah dalka loogu hirgelin lahaa si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u helaan adeegyada asaasiga ah. dhinaca kale wasiir Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shaqaalaha dawladda ay fuliyeen ololaha isxilqaan dalkaaga ku dhiso kaasi oo dib loogu dhisay xarumo kala duwan oo taariikh fog u leh dalka. wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa dhinaca kale Xuseen dawladda Soomaaliya ay dadaal uga jirto sidii ay xal uga heli lahayd barakacayaasha loona yareyn lahaa fiditaanka xeryaha ay ku nool yihiin barakacayaasha. ugu dambeyntii wasiirka howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa u mahadceliyay dalalka ku midaysan jaamacadda Carabta ee ka soo qayb galay shirweynaha iyo bangiga horumarinta Islaamka oo ku amaanay doorkiisa ku aadan maalgelinta mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinayo dalalka jaamacadda Carabta oo ay Soomaaliya xubin firfircoon ka tahay. waxaan madashan uga codsanayaa dalalka Carabta ee walaalaha ah inay gacan ka geystaan dib u dhiska dalka Soomaaliya iyagoo maalgelinaya barnaamijyada waaweyn ee lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha, xarumaha adeega dadweynaha iyo xarumaha adeegyada dawladda kuwaasi oo gacan ka geysan doona dib u soo nooleynta iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya ayuu yiri wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska Soomaaliya mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen.